وهاجاك وقطبينتينا بالهدان اجنا ودن كيسبين oo gabadh wariyaha oo ka shaqeysa telefishanka dawladda wadankaasi iyadoo bakhtiyaar nasiibka ugu weyn xilligan oo kale ee ciidda masiixiga loogu talagalay iyadoo tigidh iibsatay laakiin shaqadeedu ay ahayd inay dadka u soo baahiso bakhtiyaar nasiibkaasi oo lacagta ugu badan ee lagu helaa ay tahay 4 milyan oo euro ay sheegtay inay doonaysay iyaduna inay ka calaf qaado oo deedna ay tigidh soo iibsatay gabadhii sidii barnaamijkii ay u waday ayaa waxa soo baxay nambaradii ay iyadu qoratay ee bakhtiyaar nasiibka ay ku gashay dabadeedna jawigii barnaamijkii ay jeedinaysay iyadoo hawada si toos ah ugu jirtay ayaa waxa uu noqday sidan gabadhii inta ay iskaba ilowday barnaamijkii ay dadka u baahinaysay ayay si toos ah ula hadashay qolihii ay u shaqeynaysay oo malaha ay aad u saluugsanayd iyo shaqaalihii kale ay la shaqeynaysayba oo waxay tiri baritaha ay filanina hawl weyn baa soo kordhay oo bakhtiyaar nasiibkii baan helay gabadhii deedna damaashaad bay bilowday dadkii ag joogayna iyaguna reyntii bay kala qayb qaateen oo iyagoo mabsuud ah ayaa gabadhii markay tigidhkeedii soo bandhigtay ay ishayn kari weyday dabadeedna qayle kaga kacdo waxay tii shaqo dambe iyo kalaha dambe iyo maxaad u soo habsaantay iyo waxaad barnaamijka u diyaari weyday waxa dib leeygu maqli maayo barnaamijkiiba way ka jeesatay markii dambe ayaa watii la oran jiray ilaahow ha iyo maya meel kaliya nagaga wada yeedhsiine gabadhii markii ay u fiirsatay nambarkii ay heshay ee ay aad u dhugatay ayaa waxa soo baxday inaanay sidoo ahayn sidii ay moodaysay gabadhaasi waxay filaysay markay ugu yar tahay ee dadka loo qaybiyo bakhtiyaar nasiibkaasi inay kaga soo qaaday nus milyan lacagta yuurooga ah arintii markaliya gabadhii isla rogtay oo waxa ay noqotay inay heshay 5,000 oo kaliya dabadeedna isla barnaamijkii oo dadkii ay yaaba yihiin gabadha qaylada ka dhacaysa iyo soo shaqo tagi maaye iyo layguma hadlayo shaqadii iyo ayaa dabadeedna ay gabadhii isla barnaamijkii waxay tiri wallahi sidaan moodayay maaha ee raalliha layga ahaado dhowrkii bilood ee tagay xaaladdu igu adkayd malaa bilal badan baa lagu yeeshay baan u malaynayaa aad bay u cabatay oo waxay tiri dhowrkii bilood ee tagay baa xaaladdu jiqigu ahayd dabadeedna waxaan isiri waa tantii aad ku nafisaysay dabeedna xaalku sidii maaha bay tiri ee raalliha layga ahaado markaasi ajaladii mar kaliya dhinaca kale u rogtay oo shaqaalihii ay lahayd iyo madaxdeedii ay lahayd hay filanina ayaa waxay tii shaqadeeda aad baan u jeclahay dadka ay daawadana aad baan u qiimeeyaa weligeyna 25 sanadood aan shaqeynayay igumay soo dhicin inaan shaqada ka tago waa markay aragtay in xaalku yahay bakhtiyaar nasiibkii 5,000 oo kaliya gabadhaasi ayaa haddaba arinteeda iyo siday u dhacday waxa meel walba la dhigay warbaahinta oo aad iyo aad looga hadlayay sidii ay isu qaadatay ee ay isula baxday iyo sidii markii dambe u noqon weyday